صديق عقلي رشدوري عالي لفظي وشعرته كتمي عددو 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 عيدك مرة وي عددو 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 عيدك مرة عينانك وصديق عقلي رشدوري عالي لفظي وشعرته كتمي عددو عددو السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن صاحب يريد الكيب ملك السؤال جوجتان يسوى البرنامج ليسان واحد كسر دواتان برنامج كتب الله يدود فرن عسي مدود طايق المدود تبعي سدي بالنمو عسي مدود طايق المدود تبعي سدي بالنمو عدكود نوامي قلنا عم بيكتهاي وحقا عدد عيدك مالها عدكود نوامي قلنا عم بيكتهاي وحقا عدد عيدك مالها عسي مدود طايق المدود تبعي سدي بالنمو عسي مدود طايق المدود تبعي سدي بالنمو عدكود نوامي قلنا عم بيكتهاي وحقا عدد عيدك مالها عدكود نوامي قلنا عم بيكتهاي وحقا عدد عيدك مالها عمري وعماسينا هدي على يسعسين عمري وعماسينا هدي على يسعسين لكي عرفتي لها عرض سمير مكة عدد 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 عيدك مرة وي وي عدد 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 عيدك مرة عمري وعماسينا هدي على يسعسين عمري وعماسينا هدي على يسعسين لكي عرفتي لها عرض سمير مكة عدد 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 عيدك مرة وي وي عدد 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 عيدك مرة mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad la socotaan oo dhageysanaysaan barnaamijka dood furan oo kaga imaanaya idaacadda codka gobolada dhexe ee magaalada Cadaado in barnaamijka caawa intiisa badan waxaa ku lafaguri doona haddii allaha awoodda la raali ka noqdo waxyaabaha laga filan karo shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintiisii afraad ka socda magaalada caasimadda ee Muqdisho barnaamijka waxaa igala qayb galaya caaway Cabdiraxmaan Cabdulla Maracad oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed si dhow noola socda arrimaha dalka sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah Ustaad Abubakar Cabdullaahi Cabdi oo kamid ah barayaasha ka howlgala magaalada caasimadda ee Muqdisho si dhowna u darsa arrimaha siyaasadda sidoo kale barnaamijka caawa dooda waxaa qayb ka ah Liibaan Cabdullaahi Cismaan oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed kuwada ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho si dhow waxa uu la socda isaguna arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha shirka golaha wadatashiga oo maalmihii ugu dambeeyay ka socda magaalada caasimadda ee Muqdisho ugu horreyn waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo martida barnaamijka dhammaantiin soo dhawaada waa maalan tahay walaal waana dhownahay aad u mahadsantihiin barnaamijka ayaa gudagalana ugu horreyn waxaan rabaa inaan siiyo aan ku bilaabo Cabdiraxmaan Cabdulla Maracad oo kamid ah siyaasiyiinta dalka si dhow ula socda arrimaha dalka si gaara kamid ah siyaasiyiinta isha ku haysa shirkan golaha wadatashiga qaranka ugu horreyn Cabdiraxmaan balka siyaasi ahaan shirkan muxuu la macnayaa Muqdisho maalinta afraad ka socda
walaal aada u mahadsan tahay shirkan ujeedadiisu hore waxay ahayd haddii aan laga leexinin oo waxyaabo kale oo siyaasad iyo dagaal kale aan la geynin waxay ahayd ujeedadiisu in doorashada wixii ka dhiman lagu saxo wax la isla ogyahayna la sameeyo jadwal oo kama dambays ahna loo sameeyo waqti ay doorashada kusoo gabagaboobaysana loo sameeyo waxyaabaha khaladaadka ku jiro oo maaragtay laisku asdaafsan yahayna lagu saxo intaasaa ujeedinta ahayd intaasaana laga doonayaa in la sameeyo haddii aan lamajaraha laga leexinin oo siyaasad kale aan la dhex keenin walaal aada u mahadsanta cabdiraxmaan aan kuu soo laaban doonaa waxaan rabaa inaan markaan aado ustaad abubakar cabdullaahi ustaad ugu horeyn waan ku soo dhaweynayaa waxaa tahay bare si dhow la socda waxna ka qoro darsa arrimaha siyaasadda balka abubakar ahaan micnaha shirkan siyaabaha aad u fasirtay iyo waxyaabaha laga filan karo maxay yihiin ustaad aada u mahadsan tahay waa ku mahadsan tahay barnaamijka boqolkiiba sida fahamiya asxaabta oo qaaliga oo lagula dadka barnaamijkan wadwadaaga ka baxaya idaacadda soo laabtay su-aashaada horta meeshaan waxay jiro sida la ogsoonyahay bashir soconayo maalintii afraad galay ayaa jiro oo marhantigaas la qabo in lagu gun gaaro xaaladda markaas gobolka sida uu heli lahaa fursad dadka ay fursad ay heli lahaayeen loo gudbi lahaa xaaladda hadda la taagan yahay loona gudbi lahaa xaalad kale marka sidaas darteed shirkan maalintii afraad uu galay kule dabcanna markii aan aragtideyda aan ka muujiyo ama aan ka dhiito meeshii la rabay in lagu lafa guro arrimo doorasho waxay u noqon karo oo maantaas dana shaksi ah lagu mashquulayo aanan loo jeedinba xaaladii saxda ahayd oo loo rabay in lagu lafa guro loo lafa galo dabcan marka waxaan kule miiska wadahadalka waa la fadhiyaa kule xalkeedana kule sugiya sida aan isleeyahay ani shaksiyadeedu kule waxaan isleeyahay si loo rabay waxbaabuha aadaad u mahadsan tahay ustaad abubakar liibaan baan u yeeraya liibaan isla su-aashaas aan cabdiraxmaan iyo abubakar weydiiyey macnaha shirkan muxuu yahay waa mahadsan tahay aadana ugu mahadcelinayaa maxamed adiga iyo maxamed adab ka qayb qaadanaya barnaamijkan marka hore soomaaliya oo dhan waxa ka fuulay maanta magaalada muqdisho oo ay isugu yimaadeen maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare hogaanka u yahay waxaa waaye waxay soomaalida sugayso oo maslaxad soomaaliyeed wax ka tarinaya inay soo galaan marka keliya ujeedada weyn waxay ahayd waxyaa doorasho lagu heshiiyey si loo fuli lahay waxyaabaha maadaama ay imaadeen su-aalooyin garid in la tilmaam bixiyo iyo doorashadana sidii uu habboon ugu suurtagal in la qabto sidii qaban haya laga shaqeeyo lakala heshiiyo labaad aan aaminsana ayla tahay shirkaas inay ku dhammaanaya inuu og yahay amniga doorashada iyo amniga wadanka maadaama ay dhibaato ka taagan tahay waqti loosan karo doorka soomaaliya inuu fuliyo meeshu goobta ku shaqeynaya iyo taqdiidii waxawaaye awoodiisa oo howlahayba su-aal la dishay waxaan rabaa inuu doorashada saas inay ahayd labada bil waxaa la isugu imaaday in lala jiheeyo waxaan rajaynayaa kala idin ilaahay in la rajaydo inay jeetu doonta bulshada soomaalida ku adkeemaadeen aadaad u mahadsan tahay ustaad abubakar aan dib ugu laabanayaa ustaad shirku qorshuhu wuxuu ahaa in maalmo kooban uu socdo weliba sida markii hore la shaaciyey in 3 bari gudahood uu socdo hadda wuu daba dheeraado maalintii afraad buu galay weliba iyadoo weliba rajeen laga qabin inuu bari soo gabagabo la rajeenayo inuu shirku sii socdo rasmiyan waxyaabaha shirka daba dheereeyay maxay taaba islaada ustaadashadu aad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol kule waa waxa la isku hayo horta soomaalida haddii meel iskugu timaado arina ay ka wada shirayso dabcan fahmi way uu imaanaya in lisahmana waa imaanaysaa walow halka ugu dambeynta oo noqonayo in laisku fahmo meeshii loo socdo in la aado
waxaa hadda muhiimada daba dheereey shirkan maadaama la rabay 3 maalmood in lagu soo koobo sida muuqatay maalinta khamiis maanta oo berito oo ku beegan maalinta khamiista gabagabeeyo shirka maanta sida loo isku raacay ama la isku fahmay waxa sii daba dheereey waxay ila tahay in maanta dadka qaar ay ka weecdeen muhiimadii shirkan loo qabay in lagu oo ay doonayaan in arrimo kale gaar ah ay danahooda ay ku dhex fashidaan si ay u meel marsiiyaan maadaama ay xal farka leeyihiin dalka Soomaaliya ay ku majaro lumiyaan ujeedada bulshada u socoto oo doorasho ah in la aado ah oo ay danahooda gaarka ah ay ka dhex arkayaan meesha sidii ay ugu gaari lahaayeen waxayna marhantiis ayagoo ku xaqlinaya marhantiis ama dhinac iska dhigaya midii danta guud oo ka eegaya dadooda gaarka ah marka sidaas iyada muuqataa anigu waxaa karo shirkaas una diidayo in marhantiis waqtigii loogu talagalay loona adkeeyey lagu soo gabagaba si marka bulshada loo tusiyo waxa wanaagsan in meesha ugu soo baxaa sababta waxay ka wardhooraysaa oo ku jirto ama la socoto ama odorantiisa xaaladda dalka sidii marhantiis loo la fuguri lahaa intii markii loo la fuguri lahaa looguna soo gabagabay lahaa heshiis lagu midaysan yahay midka looga keen lahaa aad u mahadsantahay ustaad Abubakar waan kuu soo laabanayaa weli saaxiibayaal la socotaan dhageysanaysaan barnaamijka dood furan ee kaga imaanaya idaacadda codka gobolada dhexe magaalada Cadaado qaybihiisa hore ayaanu bartanka ka jirnaa waa isku soo laaban doona balse markaan farsamada ayaan dib ugu laabanayaa عدكودنا وامدنا عمي كنت غير وحدة عدد وحدك ومالنا عدكودنا وامدنا عمي كنت غير وحدة عدد وحدك ومالنا markale habeen wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka qaybihiisii hore ayaanu ku guda jirnaa markaan waxaan rabaa inaan dib ugu laabto isna siyaasiga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdulle Maracade siyaasi Maracade shirka qorshuhu waxa waa in looga hadlo arrimaha doorashooyinka ma isleedahay ajandii shirka waa laga weecdo والله ما سمعتها وحيابها عقلها مرتي مرة قد هذا كي عم بالله قدي على عن وحيابه لا قد الشركة الجديدة سرعية من دراسة الوقت هذا من البرجرية الثانية طبعا أنا وحسب حاجة لجنة سياسية قال أجل وصوم هذا تحديدية لا عن نظام قانوني عن لا عن لا يدين الناس اللي طبعا أنت مثلا دولة هذا استاذ وريه مثلا دولة هذا دولة وطن كصومالي كجبت معها الدولة ونظام الدولة حالة هي وطن الدين العالم كأي تحامل معها ونظام دولة وما في حاجة كشفت وما مدورات بدون مسؤول كقرن كوحل على الدنيا marka hadda arrin masiiri ah oo gudoomiye gobol iyo cid kale aan u oolin ayaa meesha keenay sida wararkan soo baxay ay sheegayaan inkastoo hadda aysan jirin mas'uul sida shirka qeybgal oo waxa la isku haayo oo weli la isku fahmayo aysan jirin laakiin waxa soo duuduubayo in la doonayo وطنك إن قلق الجريء وأن وطنك لا تشتغل هذا الحلقة هذا أي قانون بعد أن يلوذي نشأ أن يعد كلام يتم بالدنيا قبل أن يتكلم عليه أن كلامه ما هو حتى نحن أنتنا مثل سياسة الدرعان وصومالي الحدودية الأسبوع الشخصي أي شيء لا أي شيء راتين من سوء أي ماركة وعند الديننا إن حيارها بنت الدين السوي إيمان دونه وفيها صح أنا
ay ku tahay ummadda Soomaaliyeed hadda xilliga ariga jiri yaraa la keenana dhibaata imaanayso sida aan fahamsanay cabdiraxmaan oo shirkan golaha wada tashiga qaran oo maanta muqdisho maalintiisii afaraad galay xubnaha ka qayb galay waa xubnihii horey lagu heshiiyo heshiiska ku caddaa inay matalayaan ama yihiin xubnaha saxda ah ee shirka golaha wada tashiga qaran maxaa diidaya marka in wixii kastoo masiiri haddii ahaan lahayd amniga haddii ahaan lahayd doorashada qaabkii loo mari lahaa haddii ahaan lahayd xilligii lasoo gabagabeeyay in laga hadlo maxaa diidaya marka waxaan ku sheegaa waxaa jira qaacido waxaa jirta oo qaanuuni ah oo muxuu ahay ama usuli ah oo waxaa jirta lidahda ad-daruuratu tubiixu al-maxduuraat waxaa keentay hada daruura in oo qaab noocan loo shaqeeya dhibaatada wadanka ka jirta ayaa keentay laakiin maysan ahayn doorashada wadanka waxay ahayd ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in la weydiiyo oo keliya iyaga ay ristaan ay nidaamiyaan ay ahayd laakiin in gudoomiye gobol waxaa laga weydiiyey oo masiirkeeda ka warayaan oo golo la yiraahdo golo waxaa qaran la yiraahdo ay meel iskugu yimaadaan yani waxaa keentay duruufta wadanka la keentay dadka ay meesha keentay waxa ay ayay ka hadli karaan waxaa soo sameeyey waraha doorashada inay itijaaha sameeyaan laakiin ma geli karaano mana u taalo awoodeedana mana samayn karaano waxa hadda ajendaha soo galay ee hadda ay ka wada hadlayaan caqabada iyo dhibaatada keenay isu haystaan maysan ahayn waxay u noqdeen adkara waxaa la yidhi nin baa badan dhigtay wuxuu u dhigtay bahasha iyarta sagaara u dhigtay markaas baalwiina usoo galay markaas wuxuu yidhi dagabeero midabkii ku dhigtay umidkii marka raggaa meesha yimid waxay doorasho ku yimaadeen wax ka weyn meesha hadii la keenay waxaa waaye adiga kuma dhigan waaye marka waa la fahmi layaa ilaa hadda marka annaga waxaan leenahay war waxa saxda ha yimaadaan marka awood mana ka hadli karaano iyaga ma ka hadli karaan walaal waad mahadsan tahay maracadde dib aan kugu soo laabanaya liibaan baan rabaa in markaan inaade liibaan waa maqlaysay aragtida cabdiraxmaan maracadde waxa uu leeyahay xubnaha golaha wada tashiga qaranka doorashada bes ay awood u lahaayeen inay ka hadlaan weliba dani qasabtay arrimaha kaloo la isku hayo soo baxay inkastoo ka idaacad ahaan aan rasmi ahayn oo ah sida amniga kale inay ka hadlaan wax sharci uma haysan taa marka ma la qabtaa horta walaal cabdishir waa mahadsan tahay labada madaxweyne maxaa keenay golaha tashiga qaran inay wax lagu diidaan arrimaha masiiriga oo doorashooyinka waxaa keenay maanta la joogo maamul goboleedyada waxay gacanta ku hayaan ummad dhan ay hoggaan yihiin maanta gudi doorashooyin oo federaala wadankan doorasho noqdinay doorasho dadbana kaa shaqeynaysa marka waxay saameyn ku leeyihiin maadaama ay joogaan isteedkeeda ayaga hoggaanka marka ugu sarreey yihiin inay fududeeyaan amnigii maadaama waxaan wada ognahay isteed walba una joogin bolis federaal wada joogin amba ciidan federaal oo dowladda soomaaliya leedahay isteedi wada joogin marka saas darteed waxyaabaha suurto gelinayso inay ayaga laga waso maadaama ayagani ay mas-uulkaiga lagala qabsamayo tankar waxaa loo leeyahay maanta suurtagalnimo ma ahan ba in la gareesto wadankan amba siyaasadda soomaaliya waxay si hadaad u sheegtay manaha wax international oo la yaqaano maaha hal soomaali waxay waddanka ku qabtaa waddanka dastuurkan soomaaliya maanta meelgaarkaan ku noqonee waa gentleman agreement lagu soomaali ku heshiiso islam siyaasadeed lagu shaqeeyo waddankan wax la qabsado waa marka waxaa keenaya marxaladda la taagan yahay iyo suurtagalnimo laga shaqeeyo loodaaya waa in la helaa dad kooban oo marxaladaas si kala fulin kara maadaama isteedku awood maanta asaga maamulo awood u leeyahay inuu fuliyo kan doorashada kana waa laga leexday ujeedadii hadafka loo imaaday waa garta marka liibana waxaan kaa rabaa haddii xubnahan isku yimid oo golaha wada tashiga qaranku ay ka hadlaan arrimaha doorashada oo keliya sida habkii loo mari lahaa waqti la soo gabagabayn lahaa oo arrimaha amniga kale aanay soo hadal qaadin iyada maxaa ku jaban
adeer wax suurtagelaya ma doorashaan qabanaha doorashada dadka qabanaya waa toban waa dadkii wandadka oo dadkan muslimiinta ay samaha waxay u baahan yihiin haddii deegaanka amniga wax looga qabto kale intada qofku u sagay maanta olajeed maanta u ahaa oo kunay ayaa maanta su-aal la gelinaya awoodiisa wadankaana maalinkii lasoo dhaafay waddankan waxoogaaya madaxweyne muddo dhamaatay xukuumad ay gaarsiin waa inay qabato loo cabdiraxmaan hal mar adiga maase cabdiraxmaan waa ku siinayaa dooda waa rajaynaya maaragtay inaad isla fahmi doona anigoo ogaanaya ama la socda in markaasi muhiimadda nagu tahay inaan isdhegeysano waa ku imaanaya cabdiraxmaan laakiin hal mar aan kaa hormaray adigoo mahadsan ustaad abubakar dooda liiba haye cabdiraxmaan haye waxaa loo yaqaano doorashada maxaakan waa laga yacluudaa faahfaahinta waxaa keenaya 27 December dhibaatadii ka dhacday wadanka in doorashada lagu lifaaqo arrimaha doorashooyinka waxyaaba suurtagelnimadeeda ka shaqeynaa rabaa haddee wadanka amniga iyo dadka looga dambeeya amniga haddee maanta caddeyn uma baahana in la caddeeyo si doorashada qofkan intaas oo musharax oo siyaasi afiraasi wala deegaanada u doonaya haddaynan ogeyn dhibaatada iyo dhibka soo gaara biricida u raacanayaan oo lasoobo oo u heesta shaqo u heesta been la yidhi oo amarka qofka marka askariga la qabto dadka dhibaato marka la qabto marka la ama kusiyada su'aalka la soo maanta aan ognahay madaxweyne muddokiisa dhamaaday inuu joogo filada oo haddana maanta waxyaabaha wadanka ka dhacayna oo saameynta ogtahay uu ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed ku leedahay in maanta lagu fiirsado waxyaabaha keenay kamid ah in laga wada hadlo maadaama golaha wadasha qardoyihiin go'aamiyaasha maqaada kala duwanka aad u mahadsantahay waan kuu soo laabanayaa liibaan waxaan rabaa inaan u yeero markaan ustaad abubakar waa dhegeysanaysay dooda liibaan iyo siyaasi maracadde kolley waad la socotay dooda markaa fiiriso waxyaabaha aadka looga hadlay waxay tahay golaha wadatashiga qaranku awood ma uleeyihin wax ka baxsan arrimihii doorashada inay ka hadlaan amniga inkastoo siyaasi maracadde hore u sheegaba in xitaa arrintan ayna mudnayn laakiin duruufta iyo xaaladda dalka ku jira ay qasabtay marka adiga maxaa kaaga muuqda markaa fiiriso adigoo tix raacaya dooda liibaan iyo maracadde mise muuqataa in waxyaabihii lagu madarsanaa waxa in laga hadlay waxaan waa wax heshiis oo qoran ama waantiya jirin qofna dhamaanayo marka kule wax ka baxsan wixii lagu heshiiyey oo garaantiga 17 September heshiiskan lawada saxeexay marka 17 September waxaa ku jiray heshiiskii amniga doorashada marka amniga doorashadana waxaan madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo inuu diiday qabankiisana uu ku diiday inuu ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya marka mudan injineer yiri problem marka sidee waxaan ay sheekada Soomaaliya tirada ayaga iyaba lagu xataa oo arrintiisa marka haddii wax doorashada aan kusaynin laga hadlo ama meesha u badan tahay in uu ku yimaado shirka inuu burbur iyo in ku dhamaado ay u badan tahay marka sidaas darteed waxaa meeshaan yeelo oo ku jira qaranka waa in aysan ka hadlinaa wax mar ahaanteed aan kusaynin doorashada ama aan shaqo ku lahayn doorasho sababtoo ah waxa loo ayaga ummadan mas-uul ay ugu yihiin waa in ay gaarsiiyaan wadanka ay gaarsiiyaan sistem ama way alla u yihiin markaas uu ku imaan karo doorashadaas ay fududeeyaan si allaasha keliya ayaga kasoo geli karto nidaamkooda doorashada waa waxa loo yaqaan doorashada kasoo geli karto marka qaab kaloo ay kaga hadli karaan ama u banaynayso
in ay kaga hadlaan amniga iyada muuqataa aniga hadda Abubakar ahaan marka dabcan waxaa isleeyahay waa iska faradheeraysi oo waa arrimo kale dandan ku gaar waaye ay ila muuqato marka arrin lagu waari karo wiigaada ra-iisul wasaaraha ama golaha qaar kamid ay soo jeediyaan haloo dhiibo loo yaqaano amniga marka haloo dhiibo ustaad Abubakarow intaana kaa tegin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaxweyne farmaajo sida liibaanba uu sheegay dadka siyaasiyiintana inta badan ama qabaan waxaa la leeyahay ama la wada soconaba muddadii sharciga ahayd waxay ku ekeed February waxa la waqti waa ka dhamaaday sida daraaddeed madaxweynuhu waqtigiisa ka dhamaaday waxaa xilgaarsiinta iskale oo inta badan awoodda sii wada waa ra'iisul wasaaraha oo xukuumadda madax u ah maxaa diiday marka sida daraaddeed inuu amniga isagu la wareego oo maadaama doorashadana aan amniga looga maarmay أكيد أنا ما أستطيع أن أقول كلمة وأنا كلا يوم كذي وحنا سامي واحد كليتين شرعي طماري دكتور كير أوصل مملكة الريان وهذا كمية وياي هذا غرال وياي حبنا كذا بس أسمع إذا قلت هذا كار إن تبادل أو أي صحي منه مرة وهاي مرة طبعا وأنا كلا يقول كان هذا سواء هذا القاضي أو إن ريجيو الوزراء ما دام أصير واحد صار حكومة جديدة في ذلك ما دام لهم صار الأمور اللي جدك العادية الشيء هو نيو بورتو كل الأوجه والله صاروا طبعا كتير عرب كيف بقوا كوريا تدخلنا وفريق الجنود تنكا على كتير مركز طبعا إسرائيل هي يدك على كتير مركز لا الله waxaan isleeyahay maalintii loo dhiibay madaxweynaha ka horreeyay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ka horreeyay wuxuu u dhiibay meel fagaaro uu dhiibay amniga dalka birritana waxaa keliya kala wareegi kara amraantiisa ama ka qabsan karo madaxweyne kale inuu doorasho ku yimaado sidii sistamkii nidaamkii caadiga la maro doorasho meesha loogu saaro amniga sidaas u kooriyo marka imaan karayso in qof kale dhexda uu ka soo galo sidoo bal anaa daaqada ka soo galay amniga haliidiido si doorasho aan u beertay dalka dabcan ismana qosayso arrinta hadda taagan oo ah doorasho iyo amniga guud oo dalka maadaama amniga guud oo dalka uu hayo madaxweynaha dadka laba qodob oo shaqaan isku lehen in isku soo daro maraantiga gudaheeda amniga hadii anigoo dantayda fiirinaya ama masaxadayda eegaya waxayla maahan sababtoo ah waxay u baahan in guud madaxweyne la wareego ay u baahan tahay marka madaxweynihii imaa rashidiisa sistamkeedii lagu jiraa bal wasaaraha howlo kaligiisa ku mashquulina ha aado doorashada iyo qaabkii loo dhiraandirin lahaa loona deji lahaa ammaankeeda ha aado aada umaasanta waa kuu soo laabanaya ustaad Abubakar igu sii jir waxaan rabaa markaan inaan u yeero Cabdiraxmaan Cabdulla Maracadde nin siyaasiyada ah inta badan sida ula socda arrimaha siyaasadda dalka intaanan su'aalo kale ku saabsan shirka wax ka weydiin waxaan rabaa dhageystayaasha waxaa laga yaabaa dad badan oo kamid ah inayna u kala saarnayn amniga guud ee dalka marka laga hadlayo iyo amniga doorashada sida awgeed maxaa farqiga u dhaxeeya amniga doorashada iyo amniga guud ee dalka iyo waxyaabaha la isku hayo wixii bal sharaxaad naga sii walaal aad u maasantahay markii qaanuun ahaan aan fiirinayno waxaa sharxay istaagta qaanuun ahaan markii aan rabaa in dhinac kale ka tasho dadka doorashada markii la habeeyey oo amnigeeda lagu wareejiyey doorashada iyo amnigeeda ra'iisul wasaaraha wuxuu samaystay guddiga amniga doorashada oo u yahay kaadaliidar asaga u yahay gacankan uu ku hayo shaqadan uu wado taliyaha guud ee booliska Soomaaliyeed taliyaasha maamul goboleedyadana ay xilin ka yihiin ayaa maartay loo dhisay amniga doorashada halkaas waayo oo doorashada waa halkaas laakiin qaanuun ahaan markaan dhinaca dhinac caqli ahaan u shaqeynayna oo fiirina tusaale in waxaan ay yihiin wax oo maartay sida loo sheegay tusaale ka soo qaad waa shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir waayo
maamul goboleedka amnigiisa in lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble uu rabo mas'uuliyadda amnigiisa in lagu wareejiyo ma rabo ra'iisul wasaare Roble Jubbaland ma rabo koonfur galbeedna ma rabo Hirshabeelle Puntland ma rabo kan gobolka banaadirna Cumar Fansha u fadhiyo amniga gobolka kan in lagu wareejiyo uu doonayo ra'iisul wasaaraha maxafiiskiisa securitykiisa miyaa waxa uu raadinayaa ka maqanya marka iskuudka uu raadinayo ra'iisul wasaaraha kale waxa oo hadda oo la raadinayo waxa waaye kii oo sharciga ahay oo isaga aan awood badan lahayn kii sharciga ahay oo awood badan oo ustaad awoodka hadda uu sharciga waa awood ma jirto maxaa hadda soo qaad amniga maamulgoboleed kasta asagaa maamusho gobolka banaadir Cumar Fash iyo ku-xigeenkiisa amniga ayaa habeen maalin amniga ka shaqeeya laakiin waxa uu ra'iisul wasaare Roble raadinayo waxa waaye oo ninka la yiraahdo farmaajada gacanta ku hayo waxa waaye waa amnigii qaanuuniga ahaa kaasina cid kuma wareegi karo sida isaga uu ka sharxay haddii madaxweynaha dhinto ama shalal ku dhaco oo meesha ka baxa waxaa soo istaagaya gudoomiyaha baarlamaanka kaasaa booskaas istaagaya amnigii security wadan gacanta ku haynayo ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa inuu qabto shaqada guud ee wareegaysa inuu qabto laakiin midka hadda uu raadinayo amnigii qaanuuniga ra'iisul wasaare markii bixinta farmaajo uu banaa inuu markii la doorasho la yimaado oo xil wareejinayo aniga marka waxaan qabaa barnaamijkan waayo oo la sameynayo oo si fashiliyo oo doorashada lagu fashiliyo oo la raadinayo way shirkaana haddii noocaas uu dhaqmo waxaan aaminsanahay inaysan wax ka dhicin waxaan aaminsanahay marka ayaga bulshada Soomaaliyeed loo banaynayo waxaan Soomaalida waxay u dhaqmaysaa sidii carro camal furul firis hebel haddii aan Cabdirashiid u yeeraya haddii maanta la taagnaado يعني هور لما صار مركب أنا واحد أنا سنة هاي وحن اللي هاي وأسوي جدنا أنا وهذا إحنا بنسوي أي كلام أنا أسوي جدنا شد وحلا إن دور الشر اللي هو حاجة جيو دور الشر اللي هو حاجة جيو حرق جديد كفرماجة يخرج لك هي هنا على سكتة مجال كران دور الشر اللي هو ما بتكرر أمي دور الشر أنا في الوزارة عن كتواعد الشجع يتحجر يترياش ما مصدر أي حاجة عن كتواعد نهل يجا أي سوس عنين وتلحجر يتيجي سوس عن الناس عند الشر وكمان كأي تمين والوزارة صوب بنا دور الشر اللي هو قرار أمي دور الشر أي حاجة عن كتواعد لكن واحد هذه هو حرجت سياسات وفاضل أو هذه أيوه وأنا في السنين ساعة وأين في السنين ساعة شفت في السنين ساعة عبد الرحمن أنت أنا كاتجن هذا الكلام ربعين أصيل دبقله سيدا ضيق بكرتي واحد شيء إنه يصير مناسب هين إن لا يسكو لفاق الدورة شذا يا واحد اللي بدأ حافظ فرماشي رئيس الوزراء ربنا كدحية تسأل مركز الله جو عدد تدبية لواتجي ديسمبر إذا ما كترسن كوا dowladda ay xafiiska ra'iisul wasaaraha ka hor istaageen waliba iyaga madaxweynaha lagu eedeynayo oo dad siyaasiyiin aad ay ka hadleen oo eedeyn badan u jeediyeen madaxweynaha ra'iisul wasaarihii oo ah xilgaarsiintii xukuumadda shaqada waday ahaa in xafiiskiisa laga hor istaago sababta inta badan ay ku doodayo ra'iisul wasaaruhu siyaasiyiintuna inta badan ku dhalinayaan waxay tahay haddii madaxweynaha isagoo madaxweynaadkiisii dhammaaday uu mas'uulkii ku xigo xilgaarsiinta isku day inuu maantay hor istaag ku sameeyo wax kalena laga filan karo waa sababtaas baa leeyahay sababta kaliftay in uu taliskii ama amnigii la hoos keeno ra'iisul wasaare Roble tan kale mar hadiiba isku hor istaagaas lagu sameeyo ra'iisul wasaare Roble xaalkoodu uusan wanaagsaneyn labada xafiis ugu sareysay doorashada ku dhow sida ku socota way adkaanaysaa Soomaa هذا الشيء عليها جواب على الشيء معناه جواب على أبي غيري على الشيء فهمتها الشيء اللي يهر إتاعي أصلاً ما أنت يهر إتاعي ورماه وذاك وقعت ورماه لكن تأخذ واقع عن تبع مثل مثل
dhacdadaas waa la qabiileeyey waa la siyaasadeeyey waana laga shaqeeyo hadda waa la xaliyey sababta in loo xaliyo waxaan aaminsanahay qiyaasta federaalka waxaa digniina la siiyo waxaa la siyaasadda madelka tini waa iyada aad aragtay tali kasta afarta taliya ay hadleen ay dhaheen waa in saraakiisha siyaasadda ay ka baxaan oo qof walba halkiisa ku ekaado waa la xaliyey arrintaas sarkaalkii oo maanta arrintaas sameeyey muxuu ahaay waa la ciqaabay maalmo shaqa laga joojiyey duruufa loo maray ilaa haddana waa la tartageen ra-iisul wasaaraha laftiisana guddi u magacaabay guddigaa ku jira haddii uu farmaajo lahaa iyo haddii ciidamada saraakiisha kaligood ay lahaayeen intaba waa lagu maqan yahay marka meesha waxaa kaaga muuqdo farsana ku taa haddii roobla shalay laga hor istaayo isaga maanta ciidanka lagu wareejiyo oo bisida farmaajo albaabka maxaa dowladnimada isaga yidhaahdo marka si fiican baa kuu fahmay marcad dib baan kugu soo laabanaya waxaan rabaa inaan u yeero liibaan cabdullaahi cismaan liibaan dooda ustaad abubakar iyo marcadaba waad la socotay amniga sidoo kale markay ka hadlayeen waa dhegeysanaysay waxaa la yidhi madaxweyne kasta oo maamul goboleed oo amni raba inuu ku wareejiyo ra-iisul wasaare rooble ma jiro amniga marka uu doonayo in lagu wareejiyo keebay kula muuqata liibaanow abubakar iyo dad kale aad maxaanahayay dadkana dhegeysanaya u fahansiiyeen amniga dalka iyo amniga doorashooyinka waxay kala yihiin laakiin waxaan rabaa hal shay inaan ku daro adaradu waa mawaasaxo amniga doorashada rajaara waa lagu wareejiyey haddii wareejiyey waa wuxuu xaqulahay shirki fulinka oo rutiinka iyo shaqada uu qaban lahay waa sax laakiin waxaan u baahannahay waxay tahay taagihii booliiska wuxuu yahay ninkii hogaaminayay doorashooyinka marka laga soo tago wasaaraha si fiican sirkii taliyaasha ciidamada booliiska joogay uu yahay jerbaanka uu yahay hadduu maanta wax dhibaatooyinka amba waxyaaba ay bulshada xaraka imaado tallaabo sharci ka qaadan kara soo mid ku dhawatan oo dhaqaaq oo dhaqaaq ku samayn karin amniga doorashada iyo awoodda uu leeyahay xagee aadishan kan labaad maanta si madaxtooyo joogo oo la ogyahay sharciyadiisa iyo amniga doorasho waddankaas oo ku haayo ya sarkaal ciidan inuu amar bixiyo oo la amraatayna kor laga soo amray inuu maanta rasaare shaqadiisa ka joojiyo amba sharciyad maanta rasaare waxyaa la taagan waxa laga qaadi kara ergato oo intay taala waxaa loo baahan yahay waxaa waaye waa taliyaasha waxa amniga lagu wareejinayo waxaa waaye amarka amni amba xawaad tallaabo qasaaro iyo marka imaado waa inay hogaamada ciidanka hogaamiyo waafaqka ciidana inay tallaabo ka qaadaan booliska ugu jeednaa waxaa waaye wuxuu ka shaqeynaya doorashooyinkii laakiin maanta meeshan ciidankan xooga dalka loo adeegsanayo militariga loo adeegsanayo mas-uul ay ka shaqeynaya waa wadanka waxyaabaha ka jira walaalkay cabdiraxmaan iyo abubakar aadaan uga dhagaxinay maanta dhaxaan qoraadeed maslaxad cid soomaalida u diiday malahan laakiin waxaan rabnaa waxay soomaalida qoriga wixii haddaan wixii jiro haddaan si fiican loo kaafurin oo loo keysin oo si midkeydasa looga faataha loo cadaynin adeeg mugdi badan oo kan ka weynaa birin oo imaanaya waa maanta wada fadhinaa waa shirka ugu dambeeya rajooyinka loo noqdo khayr noogu soo dhamaado marka su-aal walba oo bulshada soomaaliya isweydiinayso amba ay u jeedaan oo dhibaatooyinka dhacaya bulshada waan su-aalaan rabaa in weydiiyo haye marka yaa haaya hadda yaa gacanta ku haayo laga qaada amniga ra-iisul wasaare in lagu wareejiyo uu rabo yaa haayo hadda oo gacanta oo laga qaada horta waa mahadsantaha abdishir horta waa abubakar hadda wuxuu sharaxay qaabka amniga dalka ku imaado iyo qaabka oo lagu kala wareego waa sax oo madaxweyne walba wadanka ka doorashadiisa waqtigiisa oo dhamaado madaxweyne kala dhaqo sheegu wuxuu madaxweyne wareejiyo amniga dalka laakiin maadaama maanta loo baahan kara guur la joogo amniga dalkeeda oo ku haayo madaxweyne muddo dhamaado aan maanta wadanka
kaambeynkiisa siyaasaddiisa ku soo noqda ka shaqeynayo in maanta amniga dalka gacanta ku hayaan waa wax aad u wanaagsan yahay aan ugu haboonay oo haddana isla markaa uu ka caayo wala lid ku aan hirgelinta doorashooyinka dalka liiban waxaan kaa rabaa waxa loo shaqaynayo waa shacabkii Soomaaliyeed siyaasad shughul kuma lahan kaliya muhiimadu waxay tahay in shacabkii arkaan maamulkii si sharci ah isku bedelay madaxweyne cusub oo yimid nidaamkii baarlamaanka isbedelay miyaan ahayn intii arintu qori ku taag noqon lahayd in la isku turo shacabkana loo daneeyo doorasho qurux badan oo doorasho dadban oo wanaagsan oo shacabkiina ay ku wada qanacsan yihiin sidii loo dalka uga dhici lahayd loo dhaqaaqo adeer way tahay cabdirashiid in loo dhaqaaqo way tahay waan ku soo shaqeyno ilaa 20 milyan libaana lagu soo saaray laakiin maanta maxaa keenay in xaruntii lagu shaqeynayo amnigii doorashooyinka oo dalka ku wareejiyay إنه أصلي وحديث في شغلة عن أول ما أقول شغلة الوزارة ما كان هو يقول إنه هو أكيد كذا أول مركب أنت أنا كاتب حتى لأنك اللي وقتك اللي هذا يا حتى أنا في العمل وعلى الدولة في الجنة أجل بيكون أمني قتلك هلا ورجيو لا ما له بس أمني بس يقول لي جاب لي ما هو ورجي بعد ما درسوا وكمان أي مثل هذا ترى يجلس أتا ما يقدر يسمع كذا درسوا على كمان أنت سمع مرنا ما تبدأ وقت بزوم بكون ما أمني قتلك هلا قال من هنا في جاسين كيف ما هذا حكومة الجاسين تهلو على ورجيو في الله كمية إذا أو كعادة أول أبيت أنا سياسة liiban aad u mahadsan tahay waan kuu soo laabanayaa cabdiraxmaan marcade haye inkastoo jeclaan lahaa inaan qaybiyo haye laakiin hal iyo labo waa ka raaligelinayaa ustaad abubakar waxaan leeyahay qodobo inuu muuqdo oo hadda ustaadka sodlidahan amniga markii la rabo amniga qaanuun waayo wax hadda ay amniga qaanuunka waxay raadinayaan amni kale hadda oo farmaajo gacan ku hayo mid jirta amnigaas awood u leeyihiin madaxda maamul goboleedyada inay yidhaahdaan farmaajo ha wareejiyo amnigaas awood u leeyihiin qaanqole marka xoog waayaa حب ماشان والو كارد عشان يا حب غير هبل ما هي وكارد عشان ينامي باش أنا وحنا هاي يدورات دور كيف كتير الوزارة عبد الشيء كنت سنايو معلومها هذا يبدأ بركي تدور الوقت كحد وستة وشيء جاي وحيد الرجال ورليه هاي وشيء قدم بي ورجع توزيع كذا حكيت وزير كأني حكيت الرجال هلا دوني أي قارئين أيا وحمودنا إن أي أرجوسا ربان لكن أي سلطان يجي أني وقتاً أي كلام أصل وأي من كرتني هدي ولا وريدين كر لكن وحنا الله عليه وإحنا كنا هدي الوريدين وبجرانا ومن أول مرات وقعوا مرعد وحنا هذا أن استقبلنا وحنا ترى بلاو أن كشف كذا إذا بنانك إمام دورن كولوجي جدا ونحط ورشنا لو أن تبدأ دلوقتي الله قصد على وكالة ده ماشى مرعد aad u mahadsantahay marcad ustaad Abuukar oo in badan dhageysanay raba inaan markaan u yeero ustaad Abuubakar markaa fiiriso habka wax u socdaan iyo sidoo kale koox shirka golaha wada tashiga qaranka tusaale madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen shirkii ra'iisul wasaaraha hore calaamiyay ka cudur daartay inuu ka qayb galo taa bedelkeed shirkii madaxweyne Farmaajo markii hore oo go'aansaday kadib shirkan uu ka qayb galay markaa fiiriso waxyaabahaas oo idin soo laga aran karo arintu kaliya kuma koobna in wax laga arinsado doorasho siyaasad baa meesha ku jirta iyo arrimo kale oo dadka shacabka aan fahmi karin تعالجيو أنا ما فهمتي أصلي سياسة بسيطة بنابو وكيف بتقول هو أفضل سلو واحد
oo ku jeedinaya runta markii laga hadlana inta iyo asxaab aysan lahayn qofkeenu inuu meel soo istaago wax baan wada ala soo tigirayso hadda waxaa marka inuu helo qofkan policy iyo dad ahaantiyaas wax la ogolo wax la wado inuu helo wax u waqtiyan marka fiirista marka sidii uu diiday madaxweynuhu markii hore koonfurta la fikiran iyo ka qaybgalkiisa hadda qaybgalayo inkastoo ay sheegayaan in maanta cadaadis xagga meesha caalamka oo sidaas darteed uu ku yimid qabashiyada uu qabaneen muyiri miiska wadahadalka lagu haybaltimo shirka ka soo qaybgalo shirka lagu wada xalinaa leeyahay dabcan markii aftiirisa marka ka soo qaybgalka kan shirkan uu ka soo qaybgalay طبعا هو وواحد مصلحات يكون دم مركي لا يصيريو مركي لا يصيري نباش هو والبابا سيدي وحكيمين اللي وحد لا يكون شيء دم أقول كفاية وبابا وسيدي كويل أما أستاجا خاهلو أما مرات أحيان يكون هلا في مركز أقول كم وقت مركي لا يحلو وحموه iyo waxa marhaantiisa la dhinac waa wax kala fog aad u kala fog dabcan waa waxa hadda bulshada ama la tusaayo waa in marhaantiisa isku hayo arrimaha bulshada ayaa loo muujinaya laakiin dabcan meesha sida xoolaha tirada wararka marka arrinta meesha way ku weyntaa wuxuu qof walba raadinaya si afay meesha soo oo maradiisa lahaa ama wax uu heli lahaa ama saaxiibkii sahel ama asay shakhsigii sahel marka waxaan isleeyahay taas baa muuqato marka markii fikirkaantiisa ama arrintanadii ka dabtay waxaan dhihi lahaa iyo waxaan meel ay ka dhigo doodan iyo danaha ra'iisul wasaarahan waxaan leenahay bal wixii ugu jiray inaad ka shaqayso madaxweynahana asay naftiisa eed baa asay naftiisa laga qabanayo waa laga qabanayo bal ukaadiyo maasha تجيني سبب كذي وحنا سلايا جانب كثير الوزراء هو عليه مثلا فالجانب عرفي لأن هو كابوس الجانب وقتي يعني هو ده قاعد كده تسوي ما هو متحدث مشكلة شعب عليه يعني أستاذ أبو بكر وحن كهرباء أنت أقول بدنا سيدا أذوقون هروع عضيدي siyaasi mara cadana qiray liibaan qudhiisii ku raacsan sida qaynuunka in amniga guud ee dalka madaxweynaha mas'uuliyad ka saaran tahay haddana shirka maanta inuu maalinta afraad galo sida aynu xoga ku helayno inkastoo si official xafiiska ra'iisul wasaare uga soo bixin waxa qasbaba la leeyahay arrimaha amniga oo la isku khilaafsan yahay ilaa iyo laba dhinac oo tusaale galmudug iyo koonfur galbeed waxay aaminsantahay in shirki laga wareejin ama amniga laga wareejin madaxweynaha محمد عبد الله فرماجو داني iyo أحمد مدوبي waxay qabaan in ra'iisul wasaaruhu la wareego علي جود لاوي iyo عمر فريش way ka aamuseen inkastoo ayagu mar aysan aad u salugsayin in aad lagu wareejiyo amniga ra'iisul wasaar Roble marka arinta gacmo geli jiro hoos baa loo dhaqaayay soo qurux badneen waxa intaysan shaaca bixin in maaragtay wixii dhexdooda isku dul qaataan oo sida ugu quruxda badan oo qaynuunka ah ay wax u xaliyaan عشان هذا موضوع أرتو طلعنا هيك هذا هواي مراد ولا إنه حبينا نقوم بمرة هذا مركا فوتبول مركي ماشان أول يستخدم باي كل مثلا طوال ده في هذا في وقت هو اختلاف كان جاء مدحونا إلى الجارة نص المصلحة وموقع marka waxaan isleeyahay adigoo markii shalay bajaanid ku raadinaysa hadii sooba istaan waaya dabcan waxaan isleeyahay intan ka dirbirood dad qaar siyaasiyiin ku xaglan ugu xaglanaa maqla marka dabcan waxaan isleeyahay baasho yani qowta loo taqawaleeyo tawada tirada markii ku muhiimsan tahay ama ugu fiican tahay in ugu mashquulin istaan wayga ka dhaxeeya ra'iisul madaxweynaha أنا أريد أن أيها الشيء الشيء أيها استهلاك
ugu horeyso khilaaf hadda kan ugu horeeyo mudabirka ay saana ku isku qaraabeen haddana uu heshiin weliba inta hadalada hadalkiisa ka muuqatay labada qof meeshii ku darin waa loo laakiin meeshii ku heshiin lama ogaado marka dabcan waxay shaqada ayaga direen hadda shaqada ayaga heshiin hadda wali direen maanta berrituna way heshiinayaan dabcan sidii uu muuqato oo waxa uu soo siiyay si jirma ama kaleeya marka in lagu mashquulay waaga ka jiro hoob information ka jira lagu mashquulo arrinka doorashada oo taagan loona kidnay bulshada ay ka sugayso in maanta ay xalka badan raggan walaha oo ku sii daray xalka gaaraan ay midaan ka dhaxayso hoobla inta la yiraahdo waxa loo yaqaano farmaajo iska yaro ka dhamaanaya maalmo kooban waa isku fahmayaan dabcan waxaan leeyahay أنا كريت من الصورية وواحد رمي وواحد هذا ما صرت أستاذ أبو بكر مرعد أنت أنا أدين ليبان أنا أدين بقول لك ليبان سياسيين تكوشر شان مقدشة معناتي أفراشك وغصعده arrimaha doorashooyinka in laga hadlayo dadkii shacabka ahaa iyo dalkaba loo tiro wax ka weyn ay wadaan oo arrimo siyaasi ah ku jira ma la is oran karaa هذا الشيء هو ما كنت حتى كثير بشارة في الشركة ما عندك حياة بدراسة تكون مع هذا اللي هو بشارة شيء لو كنت أقول محلها الواحد يلا سابقا ولا شيء وهذا اللي طلع في دوشين قالوا كلها وأنا كنت أسمع بشارة ولا شيء مركز هذا بودهان ummadda Soomaaliyeed ay ka rajeenayaan shaqada guud dhammaan oo kaliya oo shaqo fadmaado ay ka rajeenayaan sida mida marka maanta ana waxa su'aasha meesha tahay waxa ay amniga oo aashaal ah maadin bulshada waxyaabaha barabadaha waxa keenaya barabadaha la fidinayo oo laga fiirinayo shirki asiir wali natiijo ama ay dadkii shiraayeen oo gurihii shiraayeen inana hadinaya cadeyn inuu khilaaf jiro haddana waxa waaye dadkii dadkii waxaan ka jiraana waxa farsamo ilo adeegada maanta waxa ka dhigna dadka maanta qala qof maanta dhigay waxa shirka xataa la suuqa baaniyada ka baxmaanta ay leeyihiin dadka kale mada guud ahaan waa muhiim in la taageero oo kala guudka لا يحيل في تمام الحرب دبعت وعرفني ما إلا هلو عندك بعض الشرق على سبوس القرى وهذا إن شاء الله إن الأمن كمان يجي كده ورشلوا كنا بدنا يكون عبا هذا ما أصلاً ليبان وانكوس الله بنا يسيس مرعد سيده حاجة الله حاجة اللي كنا كنا بتجلان أي سومالي هراو تريد marka waxaan ka rabaa si arintiina u qurux badnaato oo aysan barnaamijka u soo bixin iyo beesha caalamka iyo dad kale naga gaarin shacabkii Soomaaliyeed daalan oo doorasho iyo isbedel ka dhirsigayna u qanacaan sidee ugu fiido loo heli karaa walaal ma kan tahay horta waxaan doonayaa waa intaas waxaan isleeyahay qodobkan oo hadda muranka iyo dooda keena haddii uu jiro oo waxa isku haysto qodobkan waa qodob macmal ah oo siyaasad ah oo dib badan waa sababtoo ah an ka maqan ra'iisul wasaare Roble uu hadda raadiyo ma jiro sababtoo ah gobolka Banaadir Umar Firisha u taagan taliyaha gobolka Banaadir booliska jooga Buntland galmudug Hirshabelle toodkii inta ma sukuurka iga haysta marka sukuur ka maqan oo reeyay oo raadi ana hadda ma garan karo waxaan isleeyahay marka in lagu xalliyo amniga farmaajo laga soo qaaday aniga lagu soo wareejiyay in oo lagu xalliyo siyaasadda maanta jirto waxaa ka wanaagsan kana fudud in doorashadii la qabto oo dil lagu soo dhameeyo kadib doorashadaas markaa lagu kala baxo security ay meeltaas haddii la yidhahdo maanta farmaajo security soo wareeji dagaal kale cusub waayo oo bilaabanayo foodo waayo
dadka filimkan ama barnaamijkan security laga soo wareejiyay farmaajo keerayna dagaalkaasi ugu talagaleen magaalada muqdisho inuu buuq iyo taylo iyo dagaal ka dhaca ugu talagaleen mana waa siyaasadda ka dambayso dadka badanaa boqolkiiba 90 iyadoo kale marka aniga waxaan qabaa waxaan oo dhan looga baxo madaxda maamul goboleedyada awoodooda waa doorashada doorashada ka hadlaano maalin heblo ay doorashada soo dhamaanayaan yiraahdaan sida qardiga nooca lagu soo saaraya ay yiraahdaan wixii khaldan sidaana lagu saaraya yiraahdaan doorashada ha habeeyaan ha iska deeyaan wax maqan oo baartay dagaal ku jiro in hadda ay dagaal ku raadiyaan oo dagaal kale ay midiyaan ha iska deeyaan ana waxaan qabaa iska bulshada Soomaaliyeed aan taas dan nooca xoolo iyo farmaajo jidkooda in meesha maanta la keeno dhibaato kala waayo ay marka dadka bulshada Soomaaliyeed ay dan ugu jiraan ma aha oo ay ugu tarayso ma aha laba qofood oo siyaasad isku haysta waa sida dadka uu sheegay siyaasadda isku haysta siyaasadana waxaa la yiraahdaa haddaad aragteen waraabo neef bishay oo shan waraabo ka timid hilibka kala jiidinayaan markii hilibka dhamaadana ayadoo madarmatano way raacayaan waa noocaas oo kale waa afkay waxbay kala ordayaan waan heshinayaan waxaan qabaa dagaalka hala joojiyo maracadda halka waa usoo laabadana halka waa ku sii doona maracadda halka waa ku sii doonaa Abubakar adiga soo koobaya doorashada markaa fiirsida wax ku socdaan bil 2 bil iyo 3 bil toona mas'ala waa lagu dhameystiri karaa adiga soo koobaya Portugal doorashadan waa waqti badan ay soo qaadatay oo ku soo jiitay waqti badan bay qaadatay dabcan hadii adduunka wax walba oo system ma jiro jid meesha ugu weyn oo hadda nimankan golaha wada tashiga qaranka laga sugayo inay soo sameeyaan baseline inay soo sameeyaan waqti ay bilaabanayso ilaa way bilaabatay way lagu gudi jiraa walow xoogaa xildhibaano la doortay haddana intii ugu badnaa boqolkiiba 90 way yimayihiin sidaa marka waxaan leeyahay laba laga hadlo laba bilood haddii loogu talagalo oo aan gadaal laga dafinayo laga daayo xorriyad la siiyo qofka markaas qarantana loo ogolaado oo si nidaam ah loo wado waxaan isleeyahay soo dhamaan kartaa waliba waa waliba aad loo jecel yahay bisada eegaya maslaxadda bulshada la dadka si waaye in waa waxaan bulshada u baahato saamooyay waa Ustaad Abubakar waqtiga aad noo kulaalayo waan kaga mahad celinayaa liibaan raba inuu yaro liibaan adigoo soo koobaya 30 sekin bas baad haysataa halka maxaad u aragtaa 30 sekin haro liibaan arwarka halka qasada kaliya liibaan in lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha ama ka qaataan shaqada ka dhacay laga xisaabtamo marka labaad waxaan hadda u arkaa in loo waqti la xayimo xilliga la qabanayo ana waxaan aaminsanahay in qof kale 6 la boqol inta u dhaxayso in doorashada dadka way keli waad mahadsantahay maracadda 30 sekin oo quraad adiguna haysata waqtiga aad kulaalaya halka waa sheegay aniga waan aad aamsanahay in oo waxyaabaha carqaladda la jeediyo halka doorashada la aado amniga la sheegayo oo hadda laga goodayana carqalad waaye tirka in lagu fashiliyo doorashada lagu fashiliyo xamarna shoobar laga sameeyo la doonayaa hal iska dhaafo cidda in laga wareejiyo rabana meesha ma fadhiso oo goob ma fadhiso cid awood u laho oo dhigi karta farmaajo soo wareejiyo halkaas dadka kartana hadda oo ma joogto marka ani waxaan aaminsanahay halka wuxuu ku jira doorasho in la aado waad mahadsan si fiican aad kuu fahmay waqtiga haya Ustaad Abubakar adigana 30 sekin oo qura bisil lamida isoo koob okay tagaalo ma tahay
waxay tahay in khilaafka iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka dhexeeya waa in meel iska dhigo waxaa leeyahay golaha waa ka shigi kareen doorashada ha ka ambaaraan runtana ha laga ambaaro muhiimadu waa runta aad u mahadsantahay ustaad abubakar intaasoo waqti u helay dhegeystayaal intaas ayaan jeclayna kusoo gabagabeeyey barnaamijka dooda waxaa igala qayb galaya abubakar cabdullaahi cabdi oo kamid ah barayaasha magaalada muqdisho si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda liibaan cabdullaahi cismaan oo kamid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed isna darisa falanqeeyana arrimaha siyaasadda iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdulla maracadde oo isna arrimaha soomaalida si dhow la socda dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin gudahaan saaxiib intaas ayaa jeclana kusoo gabagabeeyey barnaamijka liibaan ayaa